dibadbaxani oo ahaa mid lagaga soo horjeedo maamulka Axmed Madoobe iyo in mar kale gacanta loo geliyo masiirka gobolka ayaa ka dhacay degmada Doolo Soomaaliya. Boqolaal shacab ah oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee degmada ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah maamulka Axmed Madoobe iyo shir walba oo la qabto in ay hormuud ka yihiin sidii uu fashil ugu soo dhamaan lahaa. Dibadbaxayaasha oo ugu dambeyn isugu soo aruuray goob fagaara ah ayaa sheegay in gobolka Gedo masiirkiisa maamulka Axmed Madoobe aan lagala tashan karin ilaa laga gaaro dowlad goboleed loo dhan yahay. kolba magac wuxuu la soo baxaba maanta wuxuu taagan yahay inuu qarankii Soomaaliyeed ishortaago oo uu dowladnimada Soomaaliya diido oo isku celiyo burburkii iyo jabkii iyo kala go'dii iyo gobolba gobol inuu u gudbi waayo oo caasimaddu u kala go'do degma iyo xaafad u kala xirmaan ayuu ku rabaa inuu ku celiyo Soomaaliya mana ku celin karo. waa soo bariyay gacan laguma qarin karaa Soomaalidu tiraahdaa. hadda wogiyay reegado inaynan iyo dadkan Jubbaland oo u dhashay reer Jubbaland ah oo gobolka Gada joogo oo kalkuu laysmadii iyo xasuuqii iyo dilkii ka dayn waayay ka hoos baxay inuusan ku soo noqonaynin oosan u noqonaynin madaxweyne iyo maamul u noqonaynin wuu og yahay. ciidamadii u soo diray baa diyaarada looga gurahayaa gobolka kuwa la qabtay in waxbad ridahaya iyo kuwa ka xishooday inay dadkooda laayaan oo ayagu istood u soo galay oo wax garanayay ayagoo isugu jiro oon midna la dilin midna la xirin. waa caasimadda iyo qaranka in lagu wareejiyey caalamka oo dhan baa arkayo. banaanbaha kan oo ka dhacaya degmada Doolo banaanbahaas waxaan looga soo horjeedaa Axmed Madoobe waxa uu sameeyay gobolka Gada oo ihaanada uu ku riday gobolka Gada. Axmed Madoobe ma xukumo daraad ninka weeraray boolaha waayuu ka mid yahay Axmed Madoobe asoo dadka shacabka ay oo Soomaaliya gobolka ku nool asoo xasuuqay inuu maanta madaxweynenimo soo istaaga oo cabuud waa meesha la Soomaaliyeed uu ka qayb waa nasiib darro weyn. waxaan caalamka u sheegaynaa in siyaasiyiinta caalamka u sheegaynaa Axmed Madoobe in sharciga noola horkeena haddaan u dhalanay beesha gobolka Gada oo Soomaaliya weyn waxaan ka codsanaynaa in marka hadla keen baan ka codsanaynaa caalamka ka codsanaynaa maanta Axmed Madoobe garab iyo maniin walaal maniin Soomaalida ma raacsana macal Kismaayo ma raacsana ana matala maanta oo Kismaayo ku dhashay ma matalno Kismaayo maana ku soo galay waan soo dhaweynay farxadaan ku soo dhaweynay maana ka dab wuxuu adeegsaday Kenya shacabka Soomaaliya waxa lagu xasuuqay Kenya oo ciidamadii hubkooda loo adeegsaday wuxuu lagu gubay magaalada dhexdeeda hooyay Soomaaliya rag Soomaalida maanta ku dhamaaday gobolka Kismaayo oo halkaas uu ku dhameey 2013 kireedan jecelahay maalinka dagaalku ka dhacay oo dhaay maanta bariida la iyo amalow iyo qabiil inuu keeno oo Kismaayo magaalada dhexdeeda oo ku sameeyay macaarad oo Soomaalidu ku xasuuqo Kenya uga dhigay magaalada madaxda Kismaayo oo gudaha ay ku leedahay Kenya uga dhigay go'aan ku gaaray. aniga maalinkan ka soo qaatay go'aan oo Kismaayo ka soo baxan dowladda Itoobiya oo galan qaxooti ka noqday maanta waxaan diyaar u nahay inaan Axmed ku soo horjeedno saaraan Jubbaland u nahay asaga ha uu ku xirnay baa leeyahay oo burburiyay ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dad Soomaaliyeed kama shaqeynayo wuxuu ka shaqeynayaa dan asaga tiisa qaas u ah xaalin daliilin ku ah shirkadu Soomaaliyeed wan markuu bilowday Soomaaliyeed tuu markii ay la joogo Axmed oo shaqeeyay maalin waa diiday dowladda Kenya ayaa ku ragtay Nairobi ku xabistay asoo kuma marsiyoonayo waa xanuunsanahay waa jiranahay. hadda markii shirkii saddexaad la isku yimidna waa tii ma taqaanaay intaas sagacaga jiidku ku waday iyo hagadaamada uu ku waday maanta oo Soomaaliyeed afoo la isku yimidna Axmed oo shirka waa uu burburiyay waa uu diiday gobolka Gada ay laga saaray ciidamada qaranka ayay ku xiran tahay uu yiri. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ciidamada qaranka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xaq ayay u leeyihiin in ay dalka difaacaan xuduudda meel walba ay mataqaanaa ay dalka xuduudda Soomaaliya ay marayso in ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed uu joogo waa shay muqaddas ah oo lama taabtaan ah waay. markay dowladda la dhaxal kultay maxaa ku lahaay farmaajoyintu soo qabsan kaara waxay soo markay afar madaxweyne xilkaan niman baa hayay maxay lagaan xasuus mid culimada xariyo xajkiga ma aragteen xabsiga kii ku ajarnaa waxaan u sameeyay dadkii xawaleeyay ay jirtay abuurtaadii xubnayda xalay u go'aanqa ilaa xabsigii ma bay mid diyaarad ku soo xambaaray daqiiqada xamal ku keenay oo halka ka yiri ma aragteen xaliyo aan baqayna xasuus
maanta inda la yiraahdo Axmed Madoobe waligii garbaari arkay baa idinka celinaya fakarkaas lagu lahaana awoodaan ay lahaayeen ninkii shalay xisbi islaam ku dilay oo Soomaali xisbi islaamnimo ku dilay oo asagoo shabaab ku dilay haddana dawladnimada ku dilo waxa sayga waxa yeelayna maaha reegada kaliya ma aha reer Jubbaland dal ma yeelayaan reebaala waa diidan ayagan shalay wiilashii uu soo diro baxooyinkiisa soo dilo wiilio baawurka ku imaado diyaaradda hore saarayo guryaha kayflay hadda ku jiraan waxa weeye waxaan u sheegayaa Axmed Madoobe waligii markib Soomaaliya baba ar garbaari waligii mar garbaari waligii garbaari markib jada dooro uu ka imaado dooro uu ka imaado ku dooro ma cashuurta buntaas u dhaweeyay wax kale ma jiro waxa koow wasiirkeedii inta joogi jiray wasiirkeedii ma aha waa baxay Abbas waa baxay Maxamuud Siid waa baxay Axmed Madoobe waa baxay kulli hadeen ninka hadduu weji badan yahana waxa waaye aakhir meel xun buu ku bixi annagu waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Farmaajo 2 sano oo extensionka ugu daray taas inuu ku daro maan rabin saan annaga bulshada gedo u nahay inuu ku daro Farmaajo 2 sano extensionka ugu daray Axmed Madoobe taas dib bay nagu ahayd laakiin maanta 4 jeer amal baa lagu shiray Dusmareeb Amar intaas baa lagu shiray hal ra'yi buu taagan yahay markii shirka la galo laga baxkeeyo soo wacayso waxba lagu programinayaa waxa leeyahay haddii Ilaahay yiraahdiid sidoo kale gudoomiyaha degmada Doolow Soomaaliya Cali Faarax Mire oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay tanaasul taaban karo balse maamulka Axmed Madoobe iyo Dani ay caqabad ku yihiin hanaanka dawladnimo waxaan leenahay annagoo af buuxo ku hadlayno aragtida bulshada iyo dareenka Soomaaliyeed waad maqlaysaan waadna aragtaa marka koobaad waxaan u sheegaynaa cid kaste oo doonayso dib u heshiisiin iyo wada hadal waxaan leeyahay ama ay bulshadu leedahay waxa weeye saaka reer Gado ama guud ahaan reer Jubbaland wax dhibaato ah oo dhex yaalo ma ay jiraan hal shakhsi ah oo dambiile ah oo aysan ummaddu rabin weeye waxa magacooda sheeganahayo meel kastana la taagan afkoodana ku hadlahayo dawladda federaalkana waxaan u sheegaynaa in haddii aan nahay bulshooyinka Jubbaland laga daayo Axmed Madoobe boonbooninta iyo meelaha looga yeerahayo asagoo lagu ixtiraamayo magacii Jubbaland annagu waxaan nahay dhul la yiraahdo Jubbaland laakiin wax hadda la leeyahay maamul Jubbaland oo lagu midaysan yahay oo reer Jubbaland ay u dhan yihiin ay wada dhisteen oo xalaal ah ma ay jiraan reer Gado maamul ay leeyihiin maamulka asagana waa madax bannaan yahay cid kale oo reer Jubbaland oo doonaysa inay wax ku darsatana way iman karaan caasimadda gobolka ayaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa soo dhawaada ayaan leen Axmedna wakiil buuxa naga maahan dawladuna ha naga dayso waxaan u arkaynaa inay tahay xaq daro in inta loo yeero la yiraahdo masiirka Jubbaland baa laga hadlayaa Axmed Madoobe oo waa lagu qorqortamaya waxaas wax la qaadan kara maahan madaxweynaha qaranka waxaan leenahay xuquuqda dadka masaakiinta ah oo uu dhibaataynayo 24 saac Axmed Madoobe iyo tiimkiisa Ilaahay ha uga baqeen wakiil kama ahan shalmay daraad buu wuxuu ku leenayaa balaxa wadad masaakiin ah oo hal guri ah dad caa'ila ah oo hal jifaa ya madfac lagu rufanayo ummad Soomaaliyeed oo qaar la khalday iyo kuwa ciidamada xoogga dalka ayuu inta iska hor keenay buu isku laayay Cabdinuur Cismaan Cabdi dalka TV degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo